Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami eFootball meel walba adduunyada ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlayna oo saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maalinka Khamiista la keeni doono iyo waxyaabaha la qaadi doono ayaan markaasi kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkiin gudaha u sii galin saaxiib waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkana subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro aad iyo aad ayaa u mahadsantahay intaas haddii aad ii samaysay saa hadda halkaa ugu jeedaanba intaan oo subscribe ayaa haysanaa 5,000 wax yaraa inooga dhiman aad u yar please haddii aadan weli subscribe ii saarin hadda subscribe ii saar haddii aad horey subscribe iigu saartayna muuqaalkan like saar u share garee saaxiibadaada si dad kaloo wanaagsan ay noogu soo xirmaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin muuqaalkeeni ayaa gudaha usii galaynaa waxaan ku bilaabaynaa waxyaabaha maalinka Khamiista la qaadi doono sidoo kale waxaan isla eegi doonaa waxyaabaha maalinka Khamiista la keeni doono ugu horeen geemka markaas sidaa u soo gasho waxaan isla eegaynaa waxyaabaha maalinka Khamiista ah la qaadi doono ayaan isla eegaynaa waxaan eegaynaa qaybta contractiga markaas u soo galno waxaan eegaynaa special players listiga markaas sidaa u soo galno waxaan isla eegaynaa waxyaabaha maalinka Khamiista la qaadi doono abigiskan u horeeyo Italian League Attackers-kan lama qaadi doono oo isniinta la qaadi doonaa waxaa laakiin la qaadi doonaa European clubskan waa la qaadi doonaa beri oo Arbaco ah bisa u harsan sidoo kale waxaa la qaadi doonaa worldwide ama players of the week-yadan ayagana waa la qaadi doonaa hal maalin oo kaliya oo maalinta Arbacada ah oo beri ah bisa u harsan intaan kale wax la qaadayo uma jeedo laakiinse waxaa la qaadi doonaa IBGskii oo selection controlka qaybtii la dooranayay ciyaaraha la ciyaarayay European Club Special qaybtan ayadana waa la qaadi doonaa qayb kale oo ka xasaasisan ayaa lagu soo bedeli doonaa qaybaha kale haddii aan markaasi isla eegno oo markaasi fiirfiirino wax la qaadayo oo kale uguma jeedno oo saddexdaas bag aan ka ahayn waa ka laabanaynaa si aan markaasi qaybta bagiska aan u fiirino qaybta bagiska markaas saa u soo galno Manchester United bag hadda la keenay lama qaadi doono Lunar New Year kan qofkii aan fahansaneyn waxa waaye fanaanadan ayaa waxaa ku iibsanaysaa 100 koonis fanaanada markaas saa u aragto waatan Lunar New Year 2025 ay la socotaa saas ay markaasi u taala haddii aad rabto 100 koonis ayaa ku iibsanaysaa ayadana lama qaadi doono Frank Rijkaard asigana lama qaadi doono Netherlands-kana lama qaadi doono sidoo kale Frank Lampard asigana lama qaadi doono Bagan Esmilan lama qaadi doono Barcelona ayadana lama qaadi doono intaan kaleeto halka ugu jeedaan wax soo dhow ma lahan intaas ayaa la qaadi doonaa eFootball 2025 maalinka Khamiista waxyaabaha la keeni doono waxaa ugu waaweyn Players of the Week-yada Phil Foden, Kylian Mbappe, Darwin Núñez ayaa u horeeyo saddexdan ayaa la leeyahay ma baaqan doonaan maalinka Khamiista sidoo kale saddexdan kale oo Kylian Mbappe iyo ninka ciyaaro Manchester United Phil Foden saddexdan waxaa la leeyahay ayagana ma baaqan doonaan saddexdan ayaa la soo saari doonaa ayaa la leeyahay profilka Players of the Week-yada ama sawirka hore ee Players of the Week-yada sidoo kale 11 qof oo maalinka Khamiista la keeni doono waxaa la leeyahay Phil Foden, Rodrigo ama Kylian Mbappe mid ka mid ah horta waa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la leeyahay Darwin Núñez rag badan ayaa ugu jeedaa halkan waxaa la leeyahay raggan ayaa la keeni doonaa maalinka Khamiista sidoo kale managers cusub ayaa la leeyahay gameka waa lagu soo kordhin doonaa shirkadda way shaacisay in markaasi managers cusub lagu soo kordhin doono eFootball 2025 sidoo kale waxaan isla eegaynaa managerska la keeni doono maxay noqon karaan managerska la keeni doono waxay noqon doonaan Wenger oo 2001 ah ayaa la keeni doonaa adoo markaasi 500 oo koonis ku furanaysid sidoo kale waxaa la keeni doonaa Cannavaro oo asigana 2019 ah oo aad ku furanaysid 500 oo koonis ayaa la keeni doonaa
sidoo kale waxaa la keeni doonaa Klopp ayaa la keeni doonaa asigoo markaasi aad ku furanaysid 1000 koonis ama 500 oo koonis. Sidoo kale manageriska waxaa lagu soo kordhin doonaa Zidane oo ah 2016 ilaa 2017 ayaa asigana la keeni doonaa oo markaasi aad ku furanaysid 500 oo koonis. Keeni doonaa albigis cusub oo dab iyo holac ah oo markaasi cabsi ah ayaa lagu soo kordhin doonaa maalinka Khamiista, laakiin lama shaacinin albigiska. laakiin muuqaalka ku xigo ayaan idinkula wadaagi doonaa albigiska markaasi la keeni doono. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Showtime ayaa la keeni doonaa oo dab iyo holac ah cabsi ah ayaa lagu soo kordhin doonaa eFootball 2025. muuqaalka ku xigo ayaan markaasi si faahfaahsan kula wadaagi doonaa. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad naga soo gaartay. waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like saarto, channelkana aad subscribe dhahdo, gambaleelkana aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro.